in gabdho iyo wiilalo saddex talo iga qaata reasonkaan idin leehna waan idin sheegi doonaa saddexda talo waxay ka dhigan yihiinna waan idin sheegi doonaa laakiin saddexdaa talo intaynaan u gelin videoga like saara hadduuna subscribe idiin ahayna subscribe saara because waxaad la soconaysiin wax walba oo maad aragtay aan anigu soo dhigo oo dee faa'iido idiin maqlay mar dhaweyd horta intaanan gelin sheekadaas waxaad gabdho iyo wiilalow iska ilaalisin hadalka la yidhaha laqwiga صح أما الله ده إن جفك ولجا هذا الجفة أما هذا اللقبي هكو هذين وعيو وحلاجي أبا مالين مالمها كميد إنه أديك كاتب يمادو أما قف ولا شاء كدعو أما قف ولا الكاء كدعو أما الماد الشيء كدعو أما أدي لفتاده وأوكو كدعو أنت صدق كرتا مركا waxaan maqlay hadda gabdho mardhaweyta la kaftamay waa gabdho dhalinyaro I don't know haday guursadeen haday guursaneen warka ma hayo waxa lagu yiri gabdho oo ka warama hadii oo la idin dhaho ama nin naag la guursada ama nin cabtooy guursada straight away waxay yiraahdeen nin cabtooy aan guursanaha anaaba bahasha u soo gadi lahaa anaaba kan siin lahaa anaaba keersin lahaa subhanallah taas waa laqwi ama waa gef horta adduunkan waxaad ilaahay weydiisataa inuuna ilaahay ku tusin qof cabtooy noocuu doonaba ha noqdee waayo qofka cabtooyga waa qof noloshii ka dhacay guurna ma ogo wuxuu dhalay ma ogo inuu naaqaba ma ogo waayo qof shaydaan qaatay oo habeeniya maalin wuxuu ku foogan yahay siduu u heli lahaa shilinuu wax ku cunayo wax ku cabo ma garatay adduunyaba maba ogaba noloshii dhannayd baba ka dhacayba intuu ilaahay ku keenayna allaha ka kor qaado oo wiil iyo gabadh iyo qof kastaba allaha ka dulqaado intuuna alla ku keenin ilaahay ha ka qabto ilaahayba ma tuso laakiin inaad maanta nin naagle iyo nin cabtooy maanta inaad isku keento xaaraan weeye xaaraan calashaan waxaan ka wadaa gef weyn weeye ma garatay ninka naagta leh waa nin maanta naagtiisii kafeeyey ilmihiisii kafeeyey reerkiisii kafeeyey waa nin mudakara ma garatay dee haddaad rabtana waad ku guursan kartaa naagtood kula joogi kartaa haddaad rabtana waad kaga tagi kartaa maxaa gef kuu soo arkay inaad tiraahdo nin baan bahal usoo gadaya allaahuma najina min aafaad marka saddexda shay aan idin sheegayo waxa weeyaan waxaad wiil iyo gabadhba gabadh markaad la sheekeysanaysaan ama wiil la sheekeysanaysaan waa inaad ka fiirisaan dhaqanka akhlaaqda maxaan ku idhaahdaa diintuna waxay soo raacaysaa dhaqanka iyo akhlaaqdu diintuna soo raacaysaa diinta dhaqanka akhlaaqda iyo in uu wiilkaasi deeqsi yaho gacantiisu furanto maanta wax ku siinayo ninka maanta wax ku siiya berrina wuu ku kafaalo qaadan karaa maanta wax laga yaabaa inuu waxba haysanin wax yar uu helo maanta kuu keeno ama ubax yar ama wax yar inuu maanta ku siiyo berrina hadduu wax helo uu ku siin doonaa gabdho badan oo hadda waxaa jira hadda fideoyadii hore waxaan kaga hadlaynay wiilal badan oo maanta maxay ahayday dee xumeeyey xaasaskoodii oo maad aragtay dhibaato shaydaanba haba qaataba dhibaato fara badan u geystay oo ilmahoodii al'aana aan arkaynin innaga keliyana sheekadaasi inaguma koobno even dadka cadaanka ama dadka ajnabigan wadamadeena joogno waxa lagu leeyahay 80% waa single mother 20% waa single father 20% kaas waa raga fiican oo ilmaha looga tagay oo ilmahooda daryeela oo ilmahooda ilaaliya oo ilmahooda waxbarashadooda ka fikira oo ilmahooda noloshooda ka fikira oo ilmahooda maad aragtay warka haya iskuuladooda taga waraysta biilkooda on time ilmahaas hadduu jaamacad rabo haddii uu maaragtay uu rabo tutor macallimiin gooni oo ilmaha caawisa hadduu rabo hadduu maxaan ku idhaahdaa u baahan yahay alaabo uu wax ku barto like laptop oo kale waxyaabaha tacliinta lagu dhigto kale uu gadaya leen adduunkana maanta wax walba waa qaali 3,000 4,000 ay wax walba ka bilaabanayaan uu hurayo maanta ilmihiisa uu quurayo weeye ma garatay 20% kaasi 80% ka kalena waa hooyo oo single oo iyadoo ilmaheeda ku rafaadsan oo ilmaheeda maanta korsanaysa oo ilmaheeda maad aragtay rabtay inay ka sirreysiiso ilmayaasha kale
markaan waxaan idin dhihi lahaa gabdhoy haddaad gabdho tihiin gefka iska ilaaliya hadduu maanta ilaahay nin fiican gacantiina soo geliyo ilaashada ninkaa wanaagsan oo ha ku ciyaarina oo maxaan ku idhaahdayay ha dhibina ha jiirjiirina naago waxaa jira guryahooda looga sheekaynayo oo gabdho saaxiibadaa la goynayaan oo maanta gurigeedii aan on time ku imanayno ninkeedii u baahan oo guriga u dhex fadhiya oo raba maanta inuu ama casho la geeyo ama raba inay suuq isku raacaan ama intuu shaqada ka fadhiyo raba inuu naagtiisa waqti la qaato waqti geliyo aan waqti siinayno saaxiibada waqti siinays marka waxyaabahaas oo dhan baad arkaysaa dunidan inta jooga marka gabdhow ilaashada rag fiican oo wanaagsan oo waxaa jira dumarkooda raba inay ka dhigaan boqorad ka dhigtaan ayaa jira naagta nin hesha ayada boqor ka dhigto waa inay ilaashato marka videogan sorry telefoon baa iga soo dhexgalay anigoo videogii duubaya marka gabdhow haddaad ilaahay maanta gacantiina soo geliyo weliba aan waxaan la hadlayaa gabdhaha yaryar oo maaragtay hadda soo kacaya oo maaragtay nolosha uu cusub tahay oo maxaan ku idhaahdaa dunidani maanta uu cusub tahay baan anigu la hadlayaa waxaan aragnaa mar walba videoyo badan oo laga dhigayo ina gabdhaha lagu dhiirigelinayo inay gabadha maanta ninkeeda lagu diro ama la dhaho ooy naag nool iska dhig meel iska soo saar nin wax ma kaa qaadi karo waxyaabahaas oo dhan totaliba waa qalad especially dadkeena waaweyn oo noloshoodii maaragtay soo qaatay oo maaragtay kaaga qaasatan haddana maxaan ku idhahdaa qaarkoodna nolol qurux badan ku jiraan qaarkoodna ayba rafaadsan yihiinba maanta wada single mother wada yihiin inay caruurta nolosha dhalinyarada nacsiiyaan inay maaragtay nimanka ku diraan inay dhahaan ayaa ninku waa inuu wax walba isagu bixiyo inaad adigu wax bixisa maaha waryaa naagtan inay wareegto kankan maaha labada qof oo maanta dhalinyarada ah oo nolosha maanta u cusub tahay oo dunidu maanta ugu horeyso la waxay isku fahmaan ee iyagu isku maaragtay noloshooda ay ka dhiganayaan ayaga u taala hooyadu waa inay ka dhex baxdo walaal waa inuu ka dhex baxo saaxiib waa inuu ka dhex baxo haddii ku heshiiyaan inay nolosha sharing ka dhigtaan oo ay gabadhiina shaqayso wiilkiina shaqeeyo ay 50-50 ka dhigtaan ayaga hawshaasi u taala haddii keligeed wax ka qaadanaysa isagoo everything bixinayo noloshaas asaga iyaga u taalaa hawshaasi u taalaa haddii iyadu wada bixinayso iyadu tiri anaa wada kafaalo qaadanayo guriga dhan iyo nolosha dhan bixinaya haddii habiis kaga yihiin ayaga u taalaa muhiimadu waxa weeye inay labadan qof isku qanacsan yihiin inay isku faraxsan yihiin wax walba inay isla meel dhiganayaan tallaabo kasta inay isla inay same income noqdaan inay same budget noqdaan inay dhahaan oo maxay ahayd haddii labadoodiiba shaqeeyaan for example walaalay aniga lacagtaan shaqeeyana waxaynu u dhiganaynaa saving lacagta anigu shaqeeyana adigu shaqaysidna waynu wada isticmaalayna ayada u taala hawshaasoo dhan iyaga u taala labadooda in la dhexgalo oo gacan saddexaad dhex gasho ma fiicno gabadha waxay u malaynaysaa inuu qofkan maanta ku leh kan samee inay naxariis iyo natiijo u tahay wiilkana faamilkiisa ama dadka asxaabihiisa ku xeeran markay leeyihin kan samee ina nasteexa u tahay nasteexaydin maaha qof hawshiina iyo noloshiina iyo privacygiina faraha kula jira nasteexaydin maaha hadday hooyadaa tahay hadday walaalaha yihiin hadday saaxiibadaha yihiin hadday dad qaraabo oo koro yihiin maaha dad oo naxariis iyo wanaag idiin haya maaha because labadan qof ayagay waa inuu ka yimaado fikirka ayaga waa inay nolosha isla barbartaan ayaga waa inay wax walba isku maaragtay isla barbartaan ay wax walba nolosha kasoo bilaabaan paste ay kasoo bilaabaan ilaa maayo marka labadaa qof oo kale way isfahmi karaan waayo gacan saddexaad kuma jirto iyaga way isfahmayaan wiilka inuu naxariis lahayn way ogaan kartaa isaga iyadu inuu naxariis lahayn inaan naxariis lahayn wuu ogaan karaa marka gabdhuhuna waa inay wiilasha u naxariistaan wiilashuna waa inay gabdhaha u naxariistaan noloshiinana waa inaad dhisataan ood mustaqbalkiina futurekiina dambe aad ka tashataan guurkuna ciyaar maaha hadday maaragtay dadkii waaweynaa oo maanta middle age ka yahay ay noloshoodii iyaga soo baabiiyeen oo nimankii waaweynaa oo maaragtay 40 iyo ka sareeyay oo maanta gabeen mas-uuliyadoodii gabeen caruurta yaryar ee hadda la dhalayo ee 20-meeyaha ee dhowr iyo 20-meeyaha oo nolosha hadda u cusub tahay xataa
xataa hadduu aabaha hooyada ku ciyaaro maanta adiga kula soo korinin oo maad aragtay aabaha maaragtay uu noqday inuuna maanta mas-uuliyadiisii uuna qaadanin adi ha ku daysanin adigu noloshaada waad garanaysaa maanta aaba la-aantaad kusoo kortay ama gabadhaas way garanaysaa aaba la-aantay kusoo kortay ama haddii hooyo la-aan kusoo kortay way garanaysaa hooyo la-aantay kusoo kortay noloshaada adigu raaco waayo guriga hooyada eed kasoo baxday iyo gurigaaga adiga lagugu guursaday ee lagugu hooysteed adigu tegayso mas-uuliyadiisa iyo muhiimadiisu wuxuu ku saaran yahay kaad adigu ku hooyatay ood maanta ilmo u dhalaysid ood ilmo kasoo saari doontid maanta maxay ahaydee wanaagsan kaasaa mas-uuliyadiisa lagu saaray hooyada ayaabaha hadday baahan yihiin ood awoodod wax dhaanta sii haddii ay dhisan yihiin ay dhaqan yihiin maanta wax haystaana waxaad ugu tagtoon waxa weeye noqotoon ixtiraam iyo respect iyo wanaag inaad kusoo salaamtood ugu tagto waa inaad noloshaada kale hadduuna wax dhib aatoo weyn oo maanta ama gacan qaad ah ama dhibaato kale oo maaragtay financially inaana maanta waxba lagu siinayno ninku intuu shaqaysto lacagtiisa ka qarsanayo wax weynun hadduuna ku haysanin waxaad maanta intaad gurigaaga maaragtay u tagtid aad noloshaada iyo future-kaaga uga hadasho ma qabtid markaanu dhalinyarta haddii isguursanaysa nolosha guurku cusub yahay taladaasaan idin siin lahaa habar meel fadhido nolosheeda soo dhamaysatayna ha dhegaysanina oo maanta naag nooloo dhexda xidho meel iska soo saar kulena gabadh ay ha dhegaysanin wiilow adigana ha dhegaysanin oday weynoo noloshiisa intuu soo dhamaystay ku waryaa naagiiye ku xakumin ha dhegaysanin gabadhaada hadday ku xakumayso hadday kula talinayso hadday wax kuu sheegayso ha yasin naag ha ahaato laakiin maskax iyo caqli baa ku jirata naaga ninka naaga la tashada oo naagi ka dambayso ninka maanta naagi ka dambayso oo naag la tashada oo naagi maanta gadaasha ka taaganto gadaasha ka riixayso waa ninka ragga meel ka soo baxa ya ha u qaadanina dhayal dumarku inay yihiin waxaa la yidhi ninka nin ugu wanaagsanna naag baabiisa baa la yidhi oo maanta noloshiisa dhan dhulka gelisa ninka nin ugu xunna naag baa ninka soo saarta marka gabdhaha maaragtay ciyaar maaha sasabta hagaajista soo dhaweysta inamaduna gabdhow idinkuna inamada soo dhaweysta hagaajista wanaajista in laysku kiinwaaniye ma ogiye in la idinkala geeyo ma fiicno fiidiyo kasta oo iga soo horbaxa wuxuu ka sheekaynayaa maad aragtay siduu naagiyo ninu kala diri lahaa naagay meel iska soo saaray naani war ninoo meel iska soo saaray war labada qofi ee maanta isguursada hadday maanta isfahmaan ayaga isku qurux badan wax maanta isu dhaama ma jirto qof maanta laba nin iyo naag isgarab taaganoo ilmo isla daadahayna oo ilmo isla korsanaya maanta maaha maxayd qof ka wanaagsani maanta ma jirto oo maanta nolol ka wanaagsani ma jirto adliisuna dee ninkaasi ku guumaysanayn nolol xumo kugu hayn abuse kugu hayn waxba uuna ku siinayn shilinkiisa kaa la jeclaabayo kaaga una isticmaalayo adliisayna naagtu sidaasoo kale iyaduna samaynaynin marka hadda same income noqotaan oo same maaragtay talo noqotaan oo same fikir noqotaan wax walba waa idiin hagaagaya ilaahayna raalliba idinka noqonaya guri walbana maaragtay diinta ha lagu dhaqo iyo salaada iyo cibaadada ma garatay taasina ciqaab kale weeyaan maanta dhalinyaradii ma tukanayaan ilaahay kama cabsanayaan maxaan ku dhahday rabbigood maxaan ku dhaha kama baqayaan marka intaasana idinkula talin lahaa insha allah intaan videoga xiga ku kulmayno sidaa iyo nabadgeliyo bahalka muxuu talo qaldan haddii laydin siin jiray awal channelka waxaad ugu imanaysaan talo saxa in laysu kiin waaniyo in laysu kiin cabiidiyo in talo wanaagsan laydin siiyo insha allah like saara maxaan ku idhaahdaay intaan subscribe ka ahayna subscribe saara maxaan ku idhaahdaay isla socod wanaagsan insha allah naguna soo biiro hadduu ilaahay raalli ka noqdo like-tuna waa noo muhiim ha ilaawina because uu meel u gaadho oo dad badan maanta uu anfaco waayo maanta dadkeenii soomaaliyeed qaasatan qurbaha keliya loo malaynaya wadankeenii xataa dhibkaasaa ka taagan dhalinyaradii maalin walba social media ayay saas maad aragtay loogula talinaya oo laleeyanaa gabadhay isqaaliye iskane iskeere iyo iska qaaliyeen waa wiil walaalkeedu maanta wiil soomaaliyeed iyo isagu iska qaaliya inuu iska ilaalin waa gabar soomaaliyeed oo maanta walaashiya marka haddii laysku naxariisto naxariiso meesha timaado
alla ka cabsi meesha yimaado wanaaguna wuu imanaya ma garate marka waan idin salaamay gabdhow idinkuna is ilaaliya khaasatan gabdhaha Afrika jooga aad isku ilaaliya niman badan oo waxaa jira gabdhaha lugooya taana margooni aan kasoo hadli doonaa hadduu ilaahay ka dhigo fiidiyoga xigaan kasoo hadli doonaa nimanka qurbaha inta idinka imanayaan idaan aqoonin maaragtay iska guursanaysaan ama idin lugooynaya fiidiyo kale aan kaga soo hadli doona sidaa iyo nabadgeliyo insha Allah iyo saarka dambe waxay